السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوداش قيمة بدن وسلامتين مركز الدنيا دافع كجوكتان كسود هذا برنامج كنا أخبارات أفلام تركو قدام بين inta badan barnaamijkeena waxaan kaga hadalnaa niyuuska waqti xadarka si qoraa majaladaha ka soo baxa tarka Hindiya intaan ugu gelin barnaamijka data markii kugu horeysay asoo boqonaysa channelka waxaan ka codsanayaa inaad subscribe noo saarto sidoo kale ay loowin inaad muuqaalka like noo saarto inta badan saaxiibada qiimaha badan dadka muuqaalka daawada waa dad inta badan aan subscribe noo helin maadaama uu YouTube ka noo sheegayo inta badan view aan helna saaxiibada qiimaha badan waxaan ka helnaa dad aan subscribe noo saarin channelka waxaan ka codsanaa channelka waa channelka dhalinyarada sida daraadeed subscribe noo saar saaxiibada qiimaha badan aan ku bilaawno qodobkeena koowaad saaxiibada qiimaha badan ninkii ah Shahid Kapoor isbaag uu soo laabtay maadaama jamcadan ugu soo hayso 1 December tiyaatar loo saari doono filmkiisa weyn lagu magacaabo jersey sida daraadeed filmka hadda wax la horgeeyay guddiga aflaamtan Johnsooraya wayna daawadeen sidoo kale shahaadada filmkan lagu daawan lahaa ayaa la siin saaxiibada qiimaha badan inta badan markuu filmka soo baxay waxa la horgeeyay guddi aflaamta Johnsooraya kuwaas ay aflaamta daawanay kadibna filmka shahaadada u qalmaya la siiyay sida daraadeed saaxiibada qiimaha badan filmkan waxa la horgeeyay guddiga sidoo kale waxa la siiyay shahaada loo yaqaan US certificate taasoo ka dhigan qof walba da'diisa ay ka weyn tahay laba sano ayaa filmkan daawan kara qof walba da'diisa ka yarta laba sano markuu filmkan shaleemada ka daawanayo waxa qasab qof mas'uulka inuu qofka la socdo sidoo kale good news ka ninkan u hayn waxay tahay saaxiibada qiimaha badan filmkiisa waa zero ka wax muuqaal ah laga ma jirin sidii loo daawaday baashada loogu sii taasoo ka dhigan filmkan jersey waxba muuqaal ah laga ma jirin saaxiibada qiimaha badan Shahid Kapoor bartamaha wuxuu kaga jiraa guushiisa ayuu ku raaxaysanaa maadaama ninkan big blockbuster uu sameeyay sanadkii 2019 waa filmkiisii lagu magacaabo kabirsin kaasoo blockbuster taariikhi noqday ninkan saaxiibada qiimaha badan in ka badan 18 sano uu fanka Hindiya ka tirsan sanadkii 2003 ayuu fanka sidoo kale maqaamka uu rabay uu helay maadaama inta badan aflaamtu sameyn jiray iska dhaxaadayeen laakiin ninkan wuxuu superstar banaankiisa ku dhacay noqday sanadkii 2019 markii filmkiisii weynaa ka birsan oo u noqday blockbuster taariikhi u noqday haddana wuxuu soo wataa film kale oo big movie ayaa undubay wadada ugu soo jiro sidoo kale filmkan jersey waxa la daawadan doona jamcadan foodan ugu soo haysa ayaa la daawan doona ogaada ninkan filmkiisa ugu dambeeyay la daawad ka birsan wuxuu noqday blockbuster in ka badan 280 crore ayuu soo xiray box office kana wuu gilgil haddana waxa la rajayn doonaa jersey inuu ku qabsan doono guud ahaan dalka Hindiya iyo daafaha caalamka sidoo kale saaxiibada qiimaha badan ninkan akhbaarta kale aan ka hayn waxay tahay waxa la leeyahay filmkan jersey waa filmka ugu waqti dheer uu sameeyay ninkan lagu magacaabo Shahid Kapoor sidoo kale saaxiibada qiimaha badan Shahid Kapoor in ka badan 18 sano fanka Hindiya ka tirsan waxa la leeyahay filmkan waa filmka ugu waqti dheer uu sameeyay maadaama filmkan jersey uu soconaa sida hadda ay soo xaqiijisay shabakada Bollywood hangam waxa la leeyahay filmkan wuxuu soconaa ku dhawaad 2 saac 55 daqiiqo ayuu soconaa ogaada ninkan uu sameeyay aflaam sidoo kale waqti badan soconaa laakiin inta badan aflaamtiisa 2 saac ilaa 40 daqiiqo socon jireen sida filmkiisa ugu dambeeyay sanadkii 2019 la daawday lagu magacaabo badmafaad wuxuu soconaa ku dhawaad 2 saac 47 daqiiqo waxa la leeyahay laakiin filmkan jersey waa filmkiisa ugu waqti dheer oo ninkan sameyn doona haddii saaxiibada qiimaha badan shabakada Bollywood hangam waxay leedahay midaan ma laga yaabaa inay carqalad ku noqoto filmkan jersey haddii ogaada filmaanta ugu dambeeyay la daawado sidoo kale tiyaatarada la saara waxa la leeyahay in ka badan 2 saac ay soconayaan sida hadda waxaan soo qaadan karnaa filmkan bushba oo tiyaatarada gilgila wuxuu soconaa ku dhawaad 2 saac 59 daqiiqo sidoo kale waxa la leeyahay filmka 83 asna wuxuu soconaa in ka badan 2 saac 25 daqiiqo sida daraadeed waxa la leeyahay saaxiibada qiimaha badan gabi ahaanba filmkan jersey caqabad kuma noqon doonto maadaama daqiiqadiisa ay badan yihiin markaan fiirno hogaamiyaha filmkan jersey waa Shahid Kapoor sidoo kale waxa kula jira xidigaha kala marwal taakoor ban ninka kale lagu magacaabo bankaj Kapoor sidoo kale jalaayal kale ay ku jiro ogaada filmkan jersey waa dib u sameynta film laga leeyahay dhankaasi Telugu sidoo kale uu ku xarakay superstar lagu magacaabo Nani waxaana director-ka ninka lagu magacaabo Gautam isla qaybtii hore ee originalka agaasimi waxa guul u rajayn doona wiilkan lagu magacaabo Shahid Kapoor maadaama jamcada foodan ugu soo haysa loo saari doono filmkiisa lagu magacaabo jersey akhbaarta kale ay weyn waxay tahay filmkan waxa la siiyay shahaada loo yaqaan US certificate sidoo kale wax muuqaal ah laga ma jirin waxaan guul u rajayn doonaa Shahid Kapoor bal markaan saaxiibada qiimaha badan aan soo qaadanna filmka 83 maxaa u qabsoo maadaama hadda uu gudo galay wiigiisa shaqada ayuu galay maalmaha shaqada ayuu galay saaxiibada qiimaha badan waa ka xunnahay filmkan shalayto isniin ganacsiga uu sameeyay waa ganacsi aan lagu qancin karin ogaada filmkan wuxuu sameeyay ku dhawaad 40% hoos u dhacay uu sameeyay filmkan 83 markaan fiirna filmkan 83 saaxiibada qiimaha badan
jimcadii wuxuu keenay lacag gaaraysa 11.96 karoor sabtidii wuxuu keenay 16 karoor axadii wuxuu keenay 16 karoor bar isniintii oo shalay ahayd wuxuu keenay 7 karoor taasoo ka fahmi karna filimkan 40% drop out ayuu sameeyay wadarta guud filimkan oo tiyaatar saaran yahay hadda wuxuu maray 51.5 karoor ayuu maray iska dhaxna 51 karoor ayuu filimkan guud ahaan dalka Hindiya iyo daafaha caalamka soo xareeyay saaxiibada qiimaha badan kooxda iskale filimkan ay tatray midaan niyad ay ku noqonaysaa maadaama filimkan la sheegay in ku dhow 200 karoor miisaaniyad uu xambaarsan yahay taasoo ka dhigan inuu noqon doono biggest disaster ay sameyn doona sanadkan 2021 dhankaasi Bollywoodka ogaada hadda sida saaxiibada qiimaha badan shaaca laga qaaday filimkan 83 overseas-ka ama suuqyada kala caalamka wuxuu ka talaabay lacag gaaraysa 3 milyan oo doolarka Mareykanka ilaa 3 milyan bar inta u dhaxaysa ayuu soo xareeyay waana lacag ku dhow 26 karoor taasoo ka dhigan saaxiibada qiimaha badan filimkan gudaha Hindiya ku fashilmay sidoo kalena daafaha caalamka ku fashilmay maadaama soo dhaweyn wanaagsan uu helay waa ka xunna saaxiibada qiimaha badan ninkii arranversen si walba bandhigiis loo amaana filimkan 83 wuxuu noqon doonaa mid daadka qaado waxaan saaxiibada qiimaha badan idin karaala gelinaa hadad muuqaalkan ka maqashaan codad kale ama wax adag la garaacay amal saaxiibada qiimaha badan xilligan doowa muuqaalka waxa ay tahay galab sidoo kale guri haddaan aan deganahay saaxiibada qiimaha badan dabaqyada ugu sareeyay 7 ayaa dhismo ka socda sida daraadeeda waxa idin karaala gelinaa hadad cod yar ama garaac yar ama qashan ina igaraal noqotaa maadaama ay qasabta in mar walba aan jeclaa muuqaal inaan idin wadaaga saaxiibada qiimaha badan karaal noqdo hadda codad kala dheeri aad ka maqashaan muuqaalka dhexdiisa bal markaan saaxiibada qiimaha badan asla fiirina filmka atringeere iyo wacdaraha ku dhiga barta loo yaqaan Disney Balahosta saaxiibada qiimaha badan shirkadda lagu magacaabo Disney Balahosta waa shirkad inta badan bixisa adeeg loo yaqaan OTT oo inta badan aflaamta iyo OTT lagu daawado sida daraadda waxa leeyahay labada filim loogu daawashada badnaa sanadihii ugu dambeeyay waxa kaalmaha hore ku jireen filimada kala lakshmi uu sameeyay akshay kumar filmka kale lagu magacaabo hangaamatu ayaa ahaa labada film loogu daawashada badnaa bartan Disney Balahosta oo laga leeyahay aflaamta dhankaasi Bollywoodka sida daraadda labadan film waxa gadaal iska mari filimka dhawaan lagu soo fasaxay OTT-ga laga daawano barta loo yaqaan Disney Balahosta filmka Atringeere haduu wuxuu noqday filimka koowaad ee loogu daawashada badnaan yahay bartaas Disney Balahosta 40 saac lagu soo fasaxay saaxiibada qiimaha badan filimka Atringeere iskoor caalami ayuu bartaas ka dhigay sidoo kale ogaada filimkan waxa director ka ninka lagu magacaabo Ananda El Rey sidoo kale waxa iskale shirkadda awoodda badan lagu magacaabo T-Series sidoo kale shirkaddan waxa madaxa waa ninka lagu magacaabo Bhushan Kumar filimkan waxa hogaamiyalka Danush Akshay Kumar iyo Sara Ali Khan xitaa saaxiibada qiimaha badan filimka maalmihii ugu dambeeyay asagoo afsomali ay gudaha dalka Soomaaliya laga daawaday daafaha caalamka sida daraaddeed filimkan bandhiga jaraayashana aad loo amaan inkastoo filimkan Akshay Kumar uu ka yahay atoraawi uu ka yahay sida daraaddeed saaxiibada qiimaha badan filimka Atringeere wuxuu noqday filimka koowaad loogu daawashada badan yahay barta Disney Balahosta waa kaliya aflaamta laga leeyahay Bollywoodka kaalintan hadda waxa kala wareeg aflaamta kala lakshmi filimka kale lagu magacaabo hangaamatu bal markaan saaxiibada qiimaha badan aan soo qaadana today history maanta oo kale aflaamta la daawaday maanta oo kale waxa la daawaday filimka blockbuster-ka taariikhi noqday lagu magacaabo Simba filimkan waxa la daawaday 28 December 2018 markaan fiirno hogaamiyaha filimkan waa Ranveer-Singh sidoo kale waxa kula jirtay Sara Ali Khan sidoo kale waxa door ku lahaa ninka ahaa Sunusud filimkan waxa director producer ka ah ninka lagu magacaabo Rohit Chatim saaxiibada qiimaha badan filimkan Simba waxa la saaray tiyaatar gaaray 4000 oo shilin ayaa laga daawaday waxa lagu qarash garay filimkan miisaanad gaaraysa 139 karoor ayaa lagu qarash garay cumraantiisana filimkan wuxuu soo xareeyay sida hada diiwaan gashay lacag gaarayso 240 karoor filimkan qolay xajladaha waxay ka heleen macaash xad dhaaf oo gaaray 107 karoor faa'iido ay keeneen sida daraaddeed natiijada filimkan Simba wuxuu noqday blockbuster taariikhi ah oo noqday markaan fiirna filimkan waxa tigid u goosto shaleemada ka daawad gaaray 19 milyan 132 kun oo qof ayaa tigid u goosto shaleemada ka daawado filimkan Simba wuxuu kamid yahay aflaamta uu ku faan ninka Ranveer-Singh maadaama uu noqday blockbuster taariikhi doorkiisa askarigana aad loo amaan dhinaca kale maanta oo kale waxa la daawaday filimka lagu magacaabo Style filimkan waxa la daawaday 8 December 2001 markaan fiirno hogaamiyaasha filimkan waa Sharman Joshi Sahil Khan sidoo kale saaxiibada qiimaha badan filimkan waxa director producer ka ninka lagu magacaabo Jandara filimkan waxa la saaray tiyaatar gaaray 100 shilin kaliya ayaa laga daawaday waxa lagu qarash garay filimka miisaanad gaaraysa 2 karoor bar waxa filimkan cumraantiisu inuu soo xareeyay lacag gaaraysa 5.35 karoor qolyaha xajladaha qoy filimkan waxay ka heleen macaash gaaray 2.46 karoor oo faa'iido ay ka heleen sida daraaddeed filimkan Style natiijada wuxuu noqday sami hidda ayuu noqday markaan fiirno filimkan waxa tigid u goosto shaleemada ka daawad gaaray 3 milyan 173 kun qof ayaa tigid u goosto shaleemada ka
waxaa halkaas inooga dhan saaxiibada qiimaha badan barnaamijkeena akhbaaraadka aflaamta wararka ugu dambeeya waa ku mahadsantiin daawashada aad daawateen muuqaalkan waxaa idin ka codsanaa saaxiibada qiimaha badan muuqaalkan in la like gareeyo sidoo kale hadday taa markii kugu soo boqonayso channelka waxaan ka codsanaa subscribe noo saar hana ilaawina saaxiibada qiimaha badan muuqaalka in la share gareeyo si saaxiibo wanaagsan adigoo kale channelka ugu soo biran intaan barnaamij la mid ah saaxiibada qiimaha badan ku kulmeyno sidaas iyo amaana allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh